xogayaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa safar shaqo ku tagay degmada yagoori ee gobolka Sool isagoo halkaasi kulan kula qaatay ururka horumarinta degmada yagoori ee gobolka Sool dhanka kalena xadhiga ka jaray xafiis ay sameysteen ururkan dhalinyarada ah iyagoo sheegay inay si buuxda ugu soo biireen xisbiga mucaaradka ee wadani xafiiskan ay ka dhigi doonaan xafiiska garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada yagoori isxog waraysi badan kadib xogayaha maaliyadda xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo dhalinyarada kula hadlayay xafiiskooda ayaa waxa uu sheegay ka xisbiyaan inay si weyn u soo dhaweynayaan dhalinyarada ururka horumarinta degmada yagoori ee xafiiska iskood u soo abaabushay laga bilaabo maanta ay ka mid yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani salaan kadib runtii farxad iyo sharaf bay tahay inaan idin kala soo qayb galo furitaanka xafiiskan uu yeelanayo garabka dhalinyarada ee degmada yagoori ee xisbiga oo ay hormuud u noqonayaan ururkii horumarinta degmada ee dhalinyaradu sharaf bay runtii tahay waana idinku hambalyeynaya inuu xafiiska halkan ka furo run ahaantii xisbigu aad buu soo dhaweynaya wuxuuna aaminsan yahay cududda ugu weyn ee uu ku duulaya inay tahay dhalinyarada wuxuu aaminsan yahay isbeddelka uu doonayo inuu sameeyo cidda ay ku wajahan tahay ee dhalin karta marka labaadna ay u dhalanaysaa inuu yahay dhalinyarada wuxuu dowr weyn siinayaa oo ihtimaam badan siinayaa dhalinyarada guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaad ogtihiin xisbiga sida aad ka warhaysaan xubnaha ugu muhiimsan iyo xilalka ugu muhiimsan waxaa haya dad dhalinyaro ah oo inta badan ragga hadda halka fadhiya ama hawlaha halka fadhiya aanay ka waaweynayn oo ay hoggaan u yihiin iyo tilmaamayaal inta hoggaanka sare ee xisbiga odayaasha ah ay hoggaan u yihiin waxaanu rajaynaynaa dowladda ka iman doonta xisbigu inay siin doonto muhiimad weyn dhalinyarada waxaa ku qoran dastuurka maxaan radaa xisbiga iyo barnaamijkiisa waxaa ku qoran in 30% ay qaadan doonaan wixii maxaan radaa ka soo baxa ama xil ha noqoto ama horumarin ha noqoto dhalinyarada in ihtimaamka ugu badan la siin doono qaybta labaadna ay tahay haweenka ee ihtimaamka la siin doono waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala waynu guuleysan doonaa marka xisbigu guuleysto in dhalinyaradu ay ka heli doonaan horumar inay ka heli doonaan tacliin inay ka heli doonaan shaqo abuur haddii ilaahay idmo dhankooda gudoomiyaha ururka horumarinta degmada yagoori oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in codkooda iyo cududooda la garab taagan yihiin kuna taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani hadaan nahay ururka dhalinyarada waxaanu heeli hooba la garab taagannahay xisbiga wadani aanu jecelahay cid miisaaniyad la inaanu siino hadaan nahay dhalinyaradii ama u bixi degmada tan anagoo doonayna inuu isbedel badan ka dhaco degmada taasoo anaga faa'iidooyin badan loo keenaysa hadaan nahay dhalinyaro miisaaniyadii aan u baahnayn kama helo degmada marka waxaan doonaynaa xisbigan inuu miisaaniyadii aan lahayn ay dhalinyaro ahaan la siiyo san jecelahay waxaan kala salaamayaa dhammaan marti sharafta meesha ka soo qayb gashay odayaal waxgarad cuqaal iyo ururkayga marka ugu horeysa waxaan salaamaynaa waftiga sharafta leh ee inoo timi oo uu hogaaminaya Cabdirasaaq Khaliif waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinaynaa mar maadaama uu aqbalay codsigayagii in uu noo yimaado ase group ahaan ururka dhalinyarada ee degmada yagoori ay codsadeen in ay sarkaan Cabdirasaaq Khaliif taas oo ka turjumaysa in ay saboodsan yihiin ka Cabdirasaaq ahaan iyo ka xisbi ahaanba isku soo wada duuba muddooyinka u dambeeyay waxaa si weyn looga dareemayay dhammaan deegaanada gobolka Sool taageero ballaaran ay u muujinayaan shacabka gobolkan ee xisbiga mucaaradka ee wadani tan iyo inta ay safarada kala gedisan ku yimaadeen mas'uuliyiin fara badan uu hogaaminayay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray TV caalamiga Soomaali News magaalada Yagoori